محلو قدام بالصوكع محل عين حال صباح خرنا قيلون مثلا مقالة واحد صوكع لي صفر كاس نوحي سيدا دفر بدن كان ينقصوا فايدي سني ما صرح الأولي ما حصل يا وقت ما أنت ساعد ميش كسر في سحقاده وإن مريها يسرعني وما واحد كلها هاي إن سلا يرفض شقادي ذو تجيو لا أسكر بشقادي ذو تجو ويقود كيسوا يا وقت ما كان بوق يقدر أسكر يطلقوا إلى عنيا أنا كنت أتابع سبندونية مثل عقل مدينة نبغاش إن قاسوا أرض الواحد توديكوا سيبزو برضه ولا عقل مدينة هرت محل عمامة لعبت وقلدتها أنا يمكن اللي يسمعها منه توقت خطر بينهم حتى حفظ يا رب برتين ويكل يتم يقح هذا كيش كي لعبت أفرتين الواحد اسمه يدعم الناس اللي يقول ده ما قاعد كل الدنيا وامحى وحني بهد الهم وحيتا كلمة كلية تمقينيو يقول في الله كان بقى يقول في الله هداي كود دمي ما ذات كسي جدا ضايع مركز طويل ما هو حيبي سلك معك بعد هذا المياه ولي لقساني ما يصير حوار بجمع دينتيدي لكن حوالي هو دينتان بقى إمك وحبه كما هيو markuu kugu soo wareejiyay markaa xoolo soo may dad qabin oo may socon waxaad ku dhaaratay inaad run sheegaysaa maya markii uu ii keenay xooluhu way caafimaad qabeen laakiinse waxa ay bukoodeen waxoogaa kadib markaa waxay ka dhigan tahay ninkan waxba kaama haysto laakiinse ganacsigaan xoolaha ku wada darsannay uu soo gaadhay magaalada waxaanuu ka helay faa'iido aad iyo aad u badan waa in aan la qaybsadaa inta aan ku leeyahay war lacagtaadii miyaanad la noqon waa maxay waxaanaad doonaysaa ninkan shay kuma lihid baan kule lax keliyaata kuma lihid oo ma isaga keligii ayaa ganacsi ku guulaysanaya oo annoo miyaan khasaaraya dee adeer taasi ma aniga ayaad i weydiinaysaa ninkan wuxuu ilaahay u qaraad ka xaysadaysa adigu ninkaagani baqayl aad u weyn baatay adeer ilaahay baa siiyey adiguna ilaahay ku hadhaa wax weydiiso waad maadsan tahay garsoore xukunkaas waa mid cadaalada mar kasta haddii aan sidaa cadaaladda loo sugin dadku way isku dhacayaan annagana ilaahay baana amray inaanu sidan cadaaladda u sugno way noo xidhan yahay maanta أبو وحنا دمنا دي سداع oo ma wax kaa qaalisan baaban hayaa inantaydii لكن أبوي بديه هنا hadday sidaa tahay waa inaad dharkan qaar ka mida ku sadaqaysataa dumarka magaalada مركب عصب أبو haa inantaydii quruxda badnaydeed taasi waa markaad khayrka u badhaydhay aad adigu doonayso أبو ويا لقنا حقادوني قصدي دمسترتو haa inantaydii waxay noo joogtay sheekadu markii ay maryam dhashay nebi ciise calayhi salaam isaguna uu isagoo yar hadlay biyihii iyo timirtii u tusay haa weliba tan uu ku waaniyey inay iska aamusto markay dadka u tagto maryam waxay ku soo noqotay mixraabkii iyadoo sida nebi ciise oo aad u yar waxayna markaa ku kalsoonay go-aanka ilaahay sidoo kale waxa ay ogay arrintan ay wadaa inay xaq tahay oo ayna cidna ka baqanayn naa waxaan ku weydiiyey tani miyayna maryan ahayn haa waa maxay waxaad isidataa laakiin ilmo yaroo naqan bay sidataa laakiin anu waxaan u malaynayaa inuu yahay yaxya ibnu sakariya may yaxya dee imika u weynaada waana ninsa ma dhawad aniga baan hadda ayuu noqon karaa waayahay ilmaha yaritalow garan maayo ano maryam dadka maba soo dhex gashee ilmaha yar maanta talaalkay ka keentay allah dadku war iskuma hayaan intuunu halkan un baynu rumaysananaa inagu aniga waxay la tahay inaynu arrinka qarino oo aynaanu dee dadka u sheegin dhab ahaantii dee haa wax kaleynu samaynaaba meesha ma yaallo waanu isku aamusanaa walaal maxaynu samayn dee farsiga Soomaaliyeed way maagi yahay maxaa la aamusan tahay horaan idinku sheegaan ilaahay bay midar la gashay inaa cidnaba aanay la hadlin iyadu marnaba oo markaa maxaa dhacay
موغامي نوغا مسسا آمس بانكولي ومر دبا مريم كمل خلطانا كو أوراني وأنا أمسا أنا ونشوف معنا مينا وحاول تقول لك يسني مريم قالت وين باقي شيء waxaa soo dhanba waxaan kaaga sii daran dadkii muddada dhan may ahayn aabbahaa qof wanaagsan buu ahaa hooyadaana sidaas oo kale bal noo sharax sida waxu dhaceen weli ma anagii baad nagu ciyaaraysaa waa nooxaad leedahay la hadla ilmeero weli xawlkiisii ku jira nabi ciise calayhi salaam waxa uu ku jawaabay anigu waxaan ahay addoonkii ilaahay baana i doortoo iga dhigay nebi ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga wii barakeeyey wuxuuna ii dardaarmay inaan salaada oogo meel kastoo aan joogo oo ilmihii hadleebe oo isagaaba inoogu hadal karsane nabi ciise calayhi salaam hooyadii buu kor u eegay wuxuuna yidhi ilaahay wuxuu hooyadii iga dhigay mid baariya mana ihi mid ku qallafsan hooyadii ilaahay baa maalintaan dhashay iyo maalintaan dhiman doonana nabadgelyadayda ballan qaaday warku sidaasuu ku caadi yahay looma baahna inaan meesha sii joogno naga raali ah oo gabadh wanaagsan baa tahay وإلهي مهدي مرياني هدو تون كيبا كعب حياة عدو البرينو haddaba waa kan imika maxaynu samaynaa bal wuxuu sheegaa waanu garanaanahay waxaan sameeyo horta waxaynu arkaynay calaamad cajiiba ilmihii yaraa waynala hadleen ka wano haddaynu isku dayno inaan dafno dadkao dhan aan ugu jeestay doonaan laakiinse mushkila jirtaa waxa ay tahay haddii aynu sidan kaga hadhno waxay nagu soo baxaysa mushkilado cusub iyo nebi cusub oo maxaynu rumaynaa ilmo yar oo ima ku dhashay ilmaha yar marka uu weynaado isagoo xooga ku jira ayuu hadlayay markuu weynaadana maxaad ka filaysaan mucjisooyinka waaweyn buu la imanaya waxayna ku qasbanahay inaynu raacno haddii ay taas dhacdo dadku agteena way ka tegayaan sidaas ayayna ku khasaaraysaa ganacsigeena haddaba aniga fikrad ii haya arrintan aanu dheyna kusoo aragnay waynu qorinaynaa cidnimo ogaanayso si aan looga dareemin oo maxaa faa'iido noogu jirtaa ilaahay nabigiisa u gargaarayaa xitaa guusha hadday ka saabtaantee waa sidaan ku waday intaa ka horeysa waynu sii shaqaysanaynaa oo waynu tabcanaynaa oo inagoo lacag leh ayuu marka dambe nebi soo baxaya waa tiro wanaagsan haddaba imika laga bilaabo waxna maynaan arag waxna maynaa maqan مرياني برجوس جيت كأدو بتمرت كعنتي oo ciise ma keligii baan ka yimaadaa هاو بقول مرياني هو هردا يحيى ليس لا إلى علينا allaha kuu barakeeyo yaxye laakiin anigu ma awoodo hal daqiiqo inaan ka yimaado إلهي أيها إلى علينا إلى أنت دي waan ogahay laakiin isagu ma aha ilmo yaro keliya laakiin waa ammaano aada u weyn waana nebi ilaahay oo ummaddan oo dhan loo soo diray وربها إلى أنت دي دبعت بدن أيها سبيسة نبي سكريرة سيدا سام كلا أيها ركول ما دين تام تدكو وياره إنما أجيبنا ما راعين قال قاسم صوت عين haba anigu meeshan aad baan uga baqanayaa ilaahayna wuu ogyahay inaana nafteeda u baqayn laakiin waxaana baqanayaa ammaanadaa weyn ee ilaahay ii dhiibay وإذا بحثتها مرياني كنت تاكل oo halkeen tagaa وكوما كقراعية waaniga marow waa askarigii iga fur تلو حقنا عرب رايم لك مرياني qadarka ilaahay lagama baxsan karayo ciise adigu si wanaagsan u ilaali marwadii wanaagsaneed ee marow maryan maxaa dhacay askaray orodoo si degdega meesha laga tago oo baxso ciidamadii boqorku adiga xaggaaga soo socdaan waad mahadsan tahay waan samaynayaa laakiin dad safara oo raba inay tagaan masar kuwaasii raacban ku odhan lahaa orodoo dhow ma baxso ma dhulkii siinaa ee uu hore uga soo cararay nebi muuse ee uu ilaahayna kula hadlay aniga ayaa ku soo tusiyay meesha aad ka heliso laakiin iga raallahow kuma sii raaci karaya
fardahoodu way soo dhawaadeen baxsa inantaydee وكوا بوريه سيناي أنا جو حمد قولي سيدك aad baad u mahadsantahay askari yahow wanaagsani cuntadii iyo biyihii nooniga xagga qoriga waa sii soconaya su-aal ma ku weydiin karaa haa marugoodu weydiin kartaa maxaad aniga ii soo caawisay marwadeedii anigu waxaan ku caawinayaa sababtoo ah waxaad siitaa nebi kaas oo dadka ka saari doono dulmiga iyo cibaadada ay caabudayaan dadka kale بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق